بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan kaga mahadcelinayaa sidaad uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo aan idinkula wadaagayno xogtii ugu dambeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxtooyada qaranka waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo aad u wanaagsan sida aan horey u sheegnayna tan iyo markii madaxweynaha laga helay dhamaadkii toddobaadkii tagay COVID-19 ma jirin wax saameyn muuqata oo ay ku yeelatay caafimaadkiisa maadaama uu madaxweynuhu talaalnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si caadi ah u wataa shaqadiisa qaran isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada bahda caafimaadka ee la xiriira COVID-19 waxa uuna uga mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed ducadii iyo bogaadintii ay la soo wadaageen sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu waxaa bari laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira COVID-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore dhanka kale madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uuna ugu hambalyeeyay sanad guurada 45aad ee xorriyadda dalka Jabuuti madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay dawladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda Soomaaliyeed kana turjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka Soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeena oo ku astaysan inta u dhaxaysa 26 Juun ilaa 1 Luulyo waxa uu ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir loogu istaago gurmadka dadkeena ku dhibaataysan abaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobolada la ildaran abaaraha iyadoo madaxda dawladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobolada haddaba iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiija Maxamed Deeriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur sahadan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen aad baad u mahadsantihiin